Hello guys, welcome to Akomble Private School and Committed Training Center. Today we're gonna explain our first tense, simple present tense. Ayaan isla fiirin doonaa maanta oo aynu sharaxan doonaa. Okay, inta aynan meel kaleba intaynaan tegin, simple present tense maxay ku noqonaysaa luqadeena hooyo af Soomaaliga. Ereyga tense waa waqti. Present jooga hadda. Simple fudud. Afkeena hooyo waxay isku noqonaysaa markaa waqtiga hadda ee fudud bay noqonaysaa. Haddii aynu isla ogaanay micnaha simple present tense waxaynu usii gudageli doonaa qaybihiisa kale ee uu tennisku leeyahay. Simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense muxuu yahay? Definition, qeexitaan. It is used waxaa loo isticmaalaa to express in uu qeexo ama muujiyo for an action ficil which kaasoo happiness u dhacaya daily maalinle or everyday amba maalin kastaale. It is used waxaa loo isticmaalaa to express in uu muujiyo for an action ficil which kaasoo happiness u dhacaya daily maalinle or everyday amba maalin kastaale. Tenniskan simple present tense waa fal maalin walba dhaca amba maalin dhaaf u dhaca. Haddii ardaygu tenniskan uu fahmo, kuwa kaloo dhan aad bay u fudud yihiin. Tenniskani waa tenniska ay ka shidaal qaataan dhammaan tennisyada kale. Formulation. Tenniskani waxyaabaha uu tennisyada kale kaga duwan yahay waxaa ka mid ah it has two formulation. Waxa uu leeyahay laba formulo, laba qaacido ayuu leeyahay. Kuwa kale laakiin hal bay leeyihiin. Formulation qaacidadeena waa ta plural subject plus verb plus object for do. Subject plus verb plus object for do. Do bay ku shaqeeyaan iyagu. Example, tusaale. Waxaan rabnaa inaan af English ku dhahno maalin walba waxa aan tagaa iskuulka. Anigu maalin walba waxaan tagaa iskuulka. Waxaan u baahanahay af English inaan ku dhahdo af English aniga maxaa lagu dhahdaa? I. Af English maxaa lagu dhahdaa tagitaan? Go. School maxaa lagu dhahdaa? To school. Maalin kastaale maxaa lagu dhahdaa wax maalin walba dhacaya? Daily. Waxay noqotay I go to school daily. Iskuulka waxa aan tagaa maalinle, si maalinle ah baan u tagaa. Daily ayaan u tagaa. Okay, jumladeenii hore waxay ahayd statement. Waxaan rabnaa negative inaynu ka dhigno oo aynu dhahno iskuulka anigu ma tago si daily ah iskuulka uma taga anigu. I ayaynu soo qaadan doonaa. Formuladeennii hore waxay inoogu jirtay do. Plural-ku markaa waxaa ku shaqayn doonaa waa do. Do waynu soo qaadanay. I do. Kadib not baan ku darsanay. I do not. I don't bay noqotay. I don't go to school daily. Iskuulka ma tago. Maalin walba iskuulka ma tago. Si daily uma tago. Question. Do-dan horeysiinaynaa oo halkaasaan do-da keenaynaa. I-dana halkaasaan iyadna keenaynaa. Maxay noqotay? Do I go to school daily? Iskuulka ma si daily ah ayaan u tagaa. Negative question haddana. Waxaynu soo qaadan doonaa don't. Don't I go to school daily? Miyaanan iskuulka u tegin si maalinle ah? Don't I go to school daily? Miyaanan iskuulka u tegin si maalinle ah? Waxay noqonaysaa jumlada koowaad af Soomaaligeeda. Iskuulka ayaan u tagaa si maalinle ah. Iskuulka uma tago si maalinle ah. Miyaan iskuulka u tagaa si maalinle ah? Miyaanan iskuulka u tegin si maalinle ah? Tusaalahaasi wuxuu ahaa plural-ka. Waxaa inoo hadhay singular-ka. Singular-ki waa kan. Singular-ku waa subject plus verb plus s plus es plus ies plus object. Formulada maxay ku shaqayn doontaa? For does. Does bay ku shaqayn doontaa. Halka tii hore aynu hore usoo qaadanay iyadna ay ku shaqaynaysay do. Okay.
example of singularka ayaan tusaale ka bixinaynaa. Statement waa jumlad caadi oo saafiya. English baynu rabnaa inaynu ku dhahno isagu waxa uu ku nool yahay America. Af English isaga maxaa lagu dhahdaa he. Subjectigeenu waa maxay? Waa he. Kadib maxaan u baahanahay si jumladdu inay noogu dhammaystirnaato? Waxaan u baahanahay verb. Verbkeenu waa maxay? Live. Kadib si aynu is iyo as saddexa mid waa inaynu qaadanaa si aynu u buuxino ruleka u yaala singularka siduu u dhammaystiran yahay. Marka ereyga lives xarafka e baa u dambaysa. Haddii ereygaaga xarafka e ugu dambeeyana you will add s baad ku dari doontaa haddii alla weyne nafta inoo daayo. He lives waxa uu ku nool yahay in America. Objectigeenu waa kaa. Isagu waxa uu ku nool yahay halkee? America ayuu ku nool yahay. Negative waa jumlad diidmo ah. Jumladeenii hore ee ahayd he lives in America, isagu waxa uu ku nool yahay America, ayaanu rabnaa inaynu ka dhigno mid negative ah oo diidmo ah. Waxay noqoni he does not live in America. Isagu kuma noola America. Stii halkaa ku jirtay statementigii marka hore aynu ku darnay waynu ka reebi doonaa. Inaad u fiirsatid in kale mooye halkaa es baa ku jirta. waxayna ahayd formuladeena qaacidadeenu inaynu saddexdaa mid ka mid ah aynu qaadano. Maadaama uu negativeka es aynu halkaa ka qaadanay oo duudan laftirkeedu ay tahay das oo es la raaciyey, marka live-ta waan ka dayn doonaa. waxay noqotay he does not live in America. isagu kuma noola America. Question: does he live in America? isaguma waxa uu ku nool yahay America. Negative with question: does not he live in America? miyuusan isagu ku noolayn America. haddii aanu Soomaali wada dul marno, isagu wuxuu ku nool yahay America. isagu America kuma noola. miyuu ku nool yahay America isagu? miyuusan isagu ku noolayn America ayay noqonaysaa. Okay, I hope you gain what I'm saying and you understand. Yeah. Exercise-ka maan ka shaqeynaa marka haddii casharadii hore la fahmay. Waa fill in the blanket space with present verb. meelaha banaan ee blank spaceska ah ayaa waxaan ku buuxin doonaa present verb. Number 1, Cabdi dash colley ball. waxaan rabnaa inaynu dhahno Cabdi waxa uu ciyaaraa kubadda koleyga. marka halkaa dashta ah waxaan gelin doonaa play mise places. isku day ardayow. Cabdi dash colley ball. halkaa dashta ah waxaa la gelin doonaa play mise places. halkaas waxaa la gelin doonaa play. haddii aad play tiri waad saxsan tahay. halkaa waxaa la gelin doonaa play. Okay, ta labaad, they dash the lessons. iyagu waxa ay qoraan casharka ayaan rabnaa inaan af English u dhahno. marka halkaa dashta ah waxaa geli doonaa writes mise write. iyadoo es ay raacsan tahay mise iyadoo es ah oo aysan midna raacsanayn. jawaabta saxda waxay noqon doontaa write. They write the lesson. iyagu waxa ay qoraan casharka, ma ahan writes. Okay, tan kale, old man doesn't dash well. waxaynu rabnaa application inaynu ku dhahno ninka weyni ee older manka ahi si fiican waxba uma arko. marka halkaa dashta ah ma c bay noqon mise sees. jawaabta saxda waxay noqon doontaa halkaa in la geliyo ereyga c oo aan s lagu darin because of waanigii markii hore u sheegay jumladu markay negative tahay ama question ay tahay dashtaada es baa ku jirta oo es baa halkaa kugu jirta. marka verbka waad ka dayn doontaayo wax s amba es amba is aad ku dari doontaa ma jirto.
ka esta cs s baa u dambaysa esta waa laga dayn doonaa because of dash baa es wadata marka kuwaas febtobiyadaasi hal mar midkood wayna hal xaba kaga jirtaa I like waxaan jeclahay to dash health food waxaan jeclahay inaan cuno cunto caafimaad leh si ay jumladaydaasi mid saxa igu noqoto halkaa dashta ah ee blank spaceka ah ee madhan waxaan geliyaa eat mise eats isku day ardayo halkaa dashta ah waxaa la gelin doonaa eat I like to eat health foods halkaas eat bay noqon doontaa jumlada ugu dambaysa you go to school waxaad tagtaa iskuulka waxaan rabnaa inaynu halkaa ka dhigno iskuulka miyaa tagtaa marka halkaama waxaynu gelinaa do mise dash haye do bay noqon doontaa jawaabta saxda ah oo waxay noqon doontaa you go to school iskuulka ma tagtaa waxaan rajeynayaa ardaydeeda qaaliga ah ee qiimaha iyo qadarinta mudani inay casharka simple present tense ah eenu soo qaadanay inay si fiican u fahmeen wixii su-aalaha aad qabtiinna insha allah waad ila soo wadaagi doontiin